بسم الله الرحمن الرحيم maanta way taariikhdu tahay 12kii bishii shanaad 2020kii waxaanu geynay dacwad ka dhan ah dugsiyadii u hoggaansami waayay awaamirtii ka soo baxday guddida guud ee heer qaran ee ka hortagga aafadan coronavirus. dacwaddaas waxaanu geynay xeeraalinta gobolka oo ay tahay in la mariyo waajibkii iyo sharcigii ku waajibay si aanay iskuullada kale ama iskuulo kale aanay ugu dayanin. gobol ahaan gobolka Maroodijeex qaybta bariga 6 iskuul ayaa furay oo loogu tagay oo wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda waxbarashada uu ugu tagay iyaga oo waalidkii iyo ardaydii iyo macallimiintii iyo maamulayaashiba ay joogaan. iskuulladu waa iskuulladayadii, ardaydu waa ardaydayadii, macallimiintu waa macallimiintayadii. waxa weeye waxaanu diidaynaa in cudurkaasi hal qof oo ka mid ah ilaahay kuma ridabe uu ku dhaco, laakiin asbaabta ay sameeyeen waxa weeye asbaabtii ay ahayd uu ku faafayo cudurku. hal warqad oo xafiis ka soo baxday oo arday uu soo qaaday oo waalidkii uu geeyey oo gurigii la geeyey waxay aafayn kartaa inta jaarka la ah iyo cidda u imaatay iyo gurigaas iyo cid kastoo la xidhiidhay. waxaanu ka digaynaa iyadoo dacwadda iskuuladii lagu qabtay xeerlaalinta gobolku ay ku soo oogi doonto qaranka iyo wasaaradda waxbarashaduna ay dhibane ka tahay. waxaanu ka digaynaa in mar dambe ay dhacdo arrintaasoo kale oo aan hal iskuul sidaa loo fasaxay ilaa iyo xanuunkan ilaahay naga kaxaynayo oo dib loo furayo iskuuladii aan arrintaas mar dambe lagu kicin. waxaa 17kii bisha saddexaad 2019 guddida heer qaran ee ka hortagga caabuqa coronavirus ay ku dhawaaqeen sidii looga hortagi lahaa maxaan ku dhaayay xanuunkan dunida aafeeyay ee safmarkaa. waxaa maalinta 17kii bisha saddexaad ay ku dhawaaqeen in la fasaxay dhammaan goobii waxbarashada ilaa inta amar dambe uu ka soo baxayo guddida heer qaran. waxaa waqtigaasi hore oo ahaa 4 toddobaad buu ahaa. 4tii toddobaad waxay ku ekaayeen 17kii bisha afraad bay ku ekaayeen. waxay dib u cusboonaysiin waqtiga ay ku sameeyeen 17kii bisha afraad 2020 oo ku eg waxa weeye 17ka bisha maxaan ku dhaayay shanaad 2020 oo wixii xaaladda soo kordha waxa weeyaan dayaga warbixintooda laga sugi doono. waxaa daba taa ka dambeysay waxa weeyaan sidii go'aamadaasi u fulayeen inay wasaaradda waxbarashadu ay indhaindhayso goobii waxbarashada inay awaamirtaasi loo hoggaansamay oo ay sideeda u qaateen iyo in kale. nasiib daro 6dii bisha shanaad waxaa dhambaalo soo gaadhayay wasaaradda waxbarashada oo ka imanayay bulshada qaybaha kala duwan ay sheegayeen in iskuuladii waxa weeyaan dugsiyada gaarka ahaa ay u yeedheen waalidiintii iyo ardaydii ay u yeedheen iyaga oo siinaya imtixaano iyo waxa weeyaan howlqabadyo ay guriga kaga soo shaqeeyaan ardaydaas. maalintii ay wasaaraddu ku war heshay in warbixintaasi ay jirto iskuuladii u yeedheen waalidiintii iyo ardaydii oo ay goobii waxbarashada iskugu keenayaan 7dii bisha waxaa wasaaradda waxbarashada mas-uuliyiinteeda heer qaran waxa weeyaan ay shir jiraayad oo ay qabteen kaga hadleen in aan la iskugu yeedhi karin oo ay uga digayeen dugsiyada gaarka ahi inaanay iskugu keenin ardayda goobaha waxbarasho iyo waalidiinta toona. arrintaasi dheg jalaq umay siinin, hawshoodii bay sii wateen. sabtidii oo howlgalkii ugu weynaa u dhacay oo waxa weeyaan kormeerkaasi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda waxbarashada. waxaa qaybaha kala duwan ee gobolka Maroodijeex qaybtiisa galbeedka iyo qaybta barigaba lagula kulmay dugsiyo doora oo dib u furay oo dadkii dib isugu yeedhay. qaybta galbeedka Maroodijeex 5 dugsi ayaa dhacdadaasi lagula kulmay oo runtii qaarkood aynaan qiyaasi karin ubadka ay iyo waalidiinta ay goobta iskugu keeneen. arrintaasi iyadoo dee wasaaradda waxbarashadu raacaysa talaabooyinkii guddida heer qaran waxaa maanta oo ay bisha 12 tahay dacwad ka dhan ah dugsiyadaasi jabiyey maxaan ku dhahay awaamirtii dowladda. waxaan maanta u gudbinay xeerlaalinta gobolka Maroodijeex waxa weeyaan dacwad ku soo oogto dugsiyadaasi baalmaray waxa weeye awaamirtii qaranka runtii una bareeray inay maxaan ku dhahay guri kasta ay dab sudhaan. arrintaasi waxa weeyaan waxaynu uga daba fadhinaa maxaan ku dhahay xeerlaalinta qaranku inay wixii sharciyada iyo nidaamka ay iyagu mariyaan. waxaan sidoo kale dugsiyada aan uga digaynaa
waan u tudha baan leenahay bulshadeena u tudha oo arrimahaas oo kale dib yaan loogu talaabsanin runtii dee waalidiintana fariin kalaanu iyadna waxa weeyaan aanu faraynaa aanu raacinayo waxa weeye goobii waxbarashadu way xidhan waa run laakiin macallimiintii iyo waxa weeyaan howlwadeenadii iskuuladu dee idinkaydii dabra yihiin marka fiigii yaraa ee iskuulada oo aanay ku jirin basaskii iyo waxyaabii la halmaalaya toona in maxaan ku dhahay aad u dirtaan iskuulada aad u dirtaan dacwadda waanu gudbinay dacwadduna had iyo jeer dee qofka dacwoonaya iyo ka la dacweynayo waxa u dhaxaysa dee garsoor baa u dhaxeeya dacwadda marka la eego dee garsoorkaasi ama dee marka caddaymaheeda la eego waxay noqon kartaa dee wax lagu helo iskuulladii inay shaqaynayeen ama waxay noqon kartaa dee dacwadda marka la baadho wax lagu waayey kole wasaaradda waxbarashadu dee caddaymaheeda waa la imanaysaa iskuulladuna dee istifaaciddooda sharcigu u ogolyahay inay la yimaadaan laakiin muhiimaddu waxa weeye waxaynuba isku bah waxbarashay nahay sharcigii baa jabay sharcigaa jabay dee inaynu sharciga dabaqno oo aynu sharcigii dadka barno mar haddaynu bahdii waxbarashada nahay oo ay macno weyn ma samaynayso in la yidhaa hebel dee iskuulkaas waxba waa lagu waayeyna waa sax wasaaraddii waxbarashadu waxbay heshayna waa sax oo labadaba sharcigii baa ogol in wax la waayo iyo in wax la helaba marka maxkamadduna waa inoo dhex qof waliba dacwaddiisa uu soo geedigashanayaa dee saasaanu horta dacwadduna wax laga boqo maaha iskuullada kalena waxaanu leenahay war amarkaa xidhiddu weli wuu shaqaynayaa ilaa dubna loo yidhaaho fura haynugu furina iskuullada dugsiyada brifatka ee u hoggaansamay sharcigana waanu hambalyeynaynaa waxaanu leenahay waa ku mahadsantihiin furitaankeennu waxaynu ka dhur sugaynaa in guddida ka hortagga coronavirus xilliga ay noo officially inoogu furaan iskuullada intaasaan kusoo gabagabeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu